kulankan oo ahaa mid ballaaran oo wada tashi ah ayaa madaxweynaha Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel waxa uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Khaatumo ee ku nool magaalada Muqdisho waxaana madasha kulanka goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo siyaasiyiin xildhibaano ururada bulshada rayidka iyo dhalinyaro oo dhamaantoodba ka soo jeeda deegaanada Khaatumo madaxweynaha maamulka Khaatumo State Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay kulanka soo dhaweynta ee uu la qaatay dadka ka soo jeeda deegaanada Khaatumo isagoona ka warbixiyay xaaladda deegaanada Khaatumo ee uu maamulkiisu ka arrimiyo waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ugu baaqay dadka u dhashay deegaanada Khaatumo in ay yimaadaan shirka Khaatumo 3 oo uu sheegay inuu ka furmayo magaalada Taleex dhamaadka bishan mahadnaqa sida aad noo soo dhaweyseen ama maatanka iyagii ama ha ahaato haddii bigeli munaasabadan ha ahaatee waxaan kala mid ahay oo wax badan oo ku daraya ma jiro sidoo saaxiibkay Cabdalla u dhigay marka sida uu mahad celinta u sameeyay haddii bigeli ka qurux badan oo dhigi kari maayo aad iyo aad ugu mahadsantahay inta haddaan ka gudbo waan kala qaadayaa in waxaan ka dhigayaa warbixin yar oo kooban oo deegaankiya iyo socodkayga ku saabsan deegaanka warbixintiisu imika way kooban tahay deegaanka nabadgelyana way ka jirtaa haddii kale waxa kaliya ka socda imika waxa weeyaan u diyaargarowgii shirka Khaatumo tiri u diyaargarowgeedii shirka weeyaan waxa deegaanka ka socda xagga ha joogeen ama inta yadii waftiga ku socotay xagga maxay wardiyaar loo hayno socodkan dheer muxuu ahaa qolada Soomaaliland ay ilaa laas qoray ku fidisay inay xagga hol u soo baydhaan baa qorshuhu ahaa sidaan ka warhelay xog ku helay meel wuxuu iska bedelay in laga wareejiyo haddii bikeli hol-aan la tagin marka waxay ahayd uun haddii bikeli eega territory-giisa uu leeyahay ku soo kaajo oo muxuu ahaa waa calaamadsada kaadaan isku calaamadsada hadhowna ku warsada ama dadka kale ugu tilmaama haddii bikeli leeyahay barnaamijkan wasiirku ka sheekeynayay nimcada iyo qaniimada iyo haddii bikeli deegaanka aan ka taliyo inta ay tahay haddii bikeli leeyahay buu tusayay cid kale ujeedada socodka kaasuu ahaa marka hoosta waanu ka diyaar garaysnayn hadday isku dayaan holoole la yimaadaan muxuu ahaa inaanu u suurtagelin inaanu booqashadaasi inayn u suurtagelin inaanu maxay ahayd samayno waa hoostaanu ka diyaar garownaa sidan wasiirku sheegayana haddii bikeli ilaahay mahadiya haddii la islaa Khaatumo waa lagu kala tegay muxuu ahaa markii ugu horreysay ciidan ay Khaatumo leedahay oo ay Khaatumo amarto aan ciidan beeleed ahayn oo gunadiisa qaata haddii bikeli leeyahay cid amarka sinaysa in caaqilka keenay ahayna ay tahay haddii bikeli leeyahay wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidanka haddii bikeli leeyahay sida ay u kala sarreyso oo kala hooseyso baa ka jira deegaankii sidoo kale kulanka intuu socday waxa khudbada ka jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiir dawladihii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Mahdi Maxamuud Cali xildhibaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Shariif gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Soomaaliyeed Marwa Canab Xasan Cilmi iyo dad kale iyagoona dhamaantoodba soo dhaweeyay warbixinta uu ka bixiyay deegaanada Khaatumo madaxweynaha maamulkaasi iyagoona sheegay in ay ka qayb qaadanayaan shirka Khaatumo 3 ka oo la filayo in uu dhawaan ka furmo magaalada Taleex ee gobolka Sool jaaliyadu waxay aad iyo aad u diirsatay una faraxsan tahay inaad u timaadid soo booqatid is aragtaan is waraysataan ka wada hadashaan wixii danaha dadka ah iyo mandaqada aad mas-uulka ka tahay ee madaxweynaha u tahay madaxweyne waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rajaynaynay inaad noogu timaado magaalada caasimadda Muqdisho waxaan ku dhisanay 2 sano ka hor Taleex maamul goboleed 3 madaxweyne leh waa la isreebreebay waa la kala baxay waxaan noo tahay gees noo dhashay waxaan ku soo hadhay qadiyadii waxaan ku soo hadhay nabdii Khaatumo dhagi kale baabuura lagu wadwadaa waa la waardiyaa waa maqalay laakiin waxay la joogaan waa qabiil Khaatumo jiritaankeedu waa muqaddis weeye Khaatumo waa state dadkii lahaa ay samaysteen waryaala aan ku noolaan wadaynu wax qabsanaynana wax runa aan qabsano haddayna wax qabsanayna yaynan waxba waqtiga iska qaadin aan dadkeena ka mid ahaan Muqdisho waa meesha Soomaaliya laga hago Muqdisho
mudane madaxweyne haddii aan laga xoojinin maamulka oo maxay ahayd tooy laga xoojin karaa ma jirto dadka qurbaha jooga qurbo inaga maaha xataa haddayna taageeraan wax inooga soo kordhaya ma jiraan meesha la rabo in laga xoojiyo maamulada waxa weeye Muqdisho si kastaba maamulka Khaatumo oo la aasaasay sanadii 2011 ayaa waxa uu kamid yahay maamulada ka jira gudaha Soomaaliya waxaana uu xilligan ka arimiyay qaybo badan oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn balse dawladda Soomaaliya ee hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyadu dhankeeda wali hadal ka soo saarin mowqifkeeda ku aadan maamulka Khaatumo Maxamed Bilagele Somsa TV magaalada Muqdisho